عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر. waxaa laga yaabaa inaad ka mid tahay malaayiinta Soomaalida ah ee qaabkan ku soo bartay Qur'aanka Kariimka. waxaan ku sugannahay duleedka magaalada Dhagaxbuur gaar ahaan deegaanka Dhuumoodka lagu magacaabo. Macallin Cabdisiciid waxa uu halkan ku hayaa tiro ka badan 50 arday oo qaabkan aad arkaysaan wax ku baranaya. waa qaab muddo dheer ay Soomaalidu wax ku baratay. waxaa la oran karaa inta badanna waa Qur'aanku qaabka uu Soomaalida ku soo gaaray. laakiin duruuftiisa ayaa uu leeyahay qaabkani. waxaa la marayaa dunia casri ah waxaana jira tobannaan qaab oo lagu baran karo culunta noocyadeeda kala duwan. laakiin waxa ayaan darro weyna in ubadka Soomaalidu ay wali qaabkan wax ku baranayaan. waa qaabka kaliya ay waqti xaadirkan ay ku baran karaan Qur'aanka oo ah waxa ugu muhiimsan. Qur'aankan ku dhignaa looxan ku dhignaa looxaas marka ardaydu kolku wax fahmo u meel gaaro ardadii magaraysa ilaa 4 subuuc iyo meelaha 3 subuuc iyo 2 subuuc uu gaaro yaanu kitaabli ka dhignaa kolba jiilka soo kacay xagga hoosa ya luxleeya qaarkood waa awli aakhir buu dhameeyeen qaarkoodna aakhirka ay magaraysa dhameeyeen qaarna awalkii meena dhameeyeen aakhirka dhameeyay awalku dhex jiraan qaarna waxa weeyaan wax si dhameeyay aakhirka qaar waxa jira arday nooc walba way leedahay qaar waxa jira ee laftoodu soo lagu soo darayo xagga dambe laga soo darayo ma saddex waqti waan dhignaa xilligan waa akhriso habeenkii waxa weey waa akhris maalinkii iyo magaraysa aroortii iyo duhurkii labada waxa weeyaan waa dhigaal waa la dhigayaa habeenkii waxa weeyaan suuradaha la diyaariyo waxay magaraysa cashirka maanta la soo dhiganayay yaa la diyaarinaya oo la seef gareynaya aad iyo aad asal magaraysa si cashirkii aan u noqon cashir aroortii yaa adag yaa magaraysa loogu wada Allah habeenkii la diyaarsin qaabkani kulay waa qaab muddo dheer soo taxnaa oo Soomaali fara badan malaayiin Soomaali nidaamkan ay wax ku soo barteen bal waxa nooga warbixisaa muxuu kaga duwan yahay qaababka kale wax loo barto kullay Quraanka sidan baa la inugu soo gaarsiiyay ee gawaayahan dambe casriga dambe ee magaraysa ay culimadu iska dhib yaraysatay yaa kitaab buugaagtii waxyaalaha loogu dhigay qaarkood magaalooyinka sida inaga yimaada marka saasna dayac fara badan xagga Quraanka cuqubadiisa aba ka timid oo fara badan oo dayac baa ka jira saasna dhib yaraan wala waxay anagu sidan baan Quraanka lagu soo gaarsiiyay sidan buu sheekha Shacab Alxaan qalin aniga sheekhayga ahaa marka sidan uu buulan igula dardaarmo looxa ku dhig laba sano iyo waxaan dhigay 5 bilood si guud marka looga hadlo Quraanka ilaa inta leeg bad adigu shakhsiyan Dhagaxbuur lafteeda arday kale ku kiciyay tan waxa weeyaan iga 2 sano waxaan ku hayaa iyo 5 bilood baan hayaa marka muddo intee leeg bad macallin lahayd waxaan kolka la isku dardaro waxaan iga macallin ahaa ilaa iyo 18 sano oo Quraanka dhigay arday intee leeg baa laga yaabaa inay ka aflixeen oo magaalada ilaa 150 meelaha waagaan ardayda dhigayna way ahayd oo qaarkood ay xagga ay Mareykanka qayb tageen qaar Soomaaliya tageen qaar ramaga Itoobiya kor joogan way jiraan kulay qaabkan hadda aan aragno qaabab kale adduunyada maadaama xilligan la marayo dunia casri ah noocyo ka fudud oo wax loo baran kara jirta dhib intee leeg baa ku qabtaan inaad Quraanka sidan ku bartaan wadka kulli anagu de barashaan iska baranaba ahayd hadii de si magaraysa casri garan kara oo qorshe kale la keeni karo de in lagu soo kordhiyo oo dabkan hadii laga maarmi karo lahaa magaran anaga in maadaama lagu dardaro dabkaas sidii waxaan ku soo baranayna uu yahay sidii lagu dhageenahay hadii si casri ah kala hadii ay bedelan karo oo leeyahay sax loo bedelan arrinteeda waa la isla qaadan karaa waa la isla karaa saamul kala marka maanta ardaydu kulli hawlo fara badan bay leedahay de madrasada anaga waxa magaraysa u dhignay anaga xaafada inta xaafada qablayga oo sameeyay marka de kulli in loo balaariyo hadii magaraysa qorsheeda la keeni karo waa la isku tigi karaa waa la waxin karaa waa la istusaalay karaa ugu dambeyntii waxa jirta arday badan oo kulli wax soo bartay sidii sheegtay qaarkood laga yaabo hadday wadamada caalamka ka daawanayaan wax baaq oo aad u dirayso si qaabkan loogu gudbo hadda dhibaatada faraha badan ee wadka ay la kulmayaan oo nidaamyo casri ah loo heli karo iyaguna inay gacan ka geystaan baa macquul ah fariinta aad u diraysaa maxay tahay fariinta aad u dir lahaa waxay tahay caalamka dhamaantii muslimiinta hadday noqoto in magaranaysa meel eega intan waa madrasa yar oo si weyn ma aha waxa weeyaan kolka la xareeyo loo xuduudiyo iyaga lagu xareeyo ma qaadi karto inay de madrasa fiican oo magaranaysa taamaho ballaaran oo dhismo eega taasi waxa weeyaan waa korkana waa jingad hoostana waa xaabo inay de usoo dhisaan oo magaraysa dhisaanka bedelaan oo muslimiinta wixii cidii wax kar kartay magaraysa wax tawaalayn karta inay ku soo waxayso ardooyinka xataa isku joogiyo qorshe labisiya u baahan yihiin baa jira ayagana cidii ka tagan karta inay ka soo labisiyadoodii waxyaalaha soo hagaajiyaan oo hadii shulugyada kala noqoto hadii xagga masaajid noqoto halkan ay dhul baa isaguna noo magaraysa noo yaala in magaraysa masaajid laga dhigo oo ku malcamada dhinaceeda in la soo dhiso u baahan wax kale oo baahan kale barkad biyo iyada lafteeda hadii magaraysa ardaygu haduu looxbu u maydhan uu weysaysan xaalad farba suulibi u baahan yahay qorshoogaas aan u baahan hadii cidii tabaaran karta muslimiina inay magaraysa ay ku soo magaraysa tabarucaad
qaadaan لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا